guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya si isku mid ah lan ku xusay maalinta 8 Maarso oo ay maalinta hanraabta Soomaaliya sida faahfaahinada wararku Yohaninka direen wariyalkana oo munaasabadooda si ku qayb galay munaasabadan oo ahayd xuska maalinta caalamiga ah haweenka caalamka ee 8 Maarso ayaa waxay ka qabsoontay hoolka nabadda ee degmada Baladaxaawe ee gobolka Gedo iyadoo ay soo qaban qaabiyeen munaasabadan ururka haweenka ee Barwaaqo waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada Baladaxaawe ee gobolka Gedo oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha degmada Baladaxaawe Maxamuud Xeyd Ismaan madaxa maaliyadda degmada Diiriye Gaarane Xasan iyo taliyaha nabad sugidda Jubbaland ee gobolka Gedo Mudane Cali Xasan Deer odayaal dhaqameed iyo haweenka ururka Barwaaqo ugu hore waxaa munaasabadan daafuray gudoomiyaha degmada Mudane Maxamuud Xeyd Ismaan iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda Jubbaland ee gobolka Gedo Cali Xasan Deer iyagoona ugu horeyn u hambalyeeyay haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan haweenka Barwaaqo oo iyagoo u taagan ka qayb qaadashada xasilinta deegaanka waxaana sidoo kale mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadan ay dhankooda tilmaameen caqabadaha iyo duruufaha adag ay ku shaqeynayaan haweenka Barwaaqo iyagoona ugu dambeyn ku amaanay waxqabadka ay ka hayaan degmada Baladaxaawe ee gobolka Gedo ooyinkaanagiyow kuwii dadka soo ababiyow aad baan ugu mahadcelinayaa 8 Maarso waa soo dhaweyn waxaan kaloo soo dhaweynaynaa saad nabadda iyo nadaafadda iyo Soomaalinimada leh oo u istaagteen adinka oo inta qof bina aadan ay ku xiriirtiin ku xidhan haddana carruurtii gadaal oo fikiraysaan hawsha degmada iyo deegaanada iyo horumarkii loo saad oo qayb qaadanaysaan aad baan ugu mahadcelinayaa waxa maanta aan amaan u hayo urur haween ama haween meel kasta joogaanba waxaad malayn kartaan ma bana aadamka meeshu ka socdo ama oo ka dhaqaaqo waa soo dhaweynaynaa maalintan waa maalin aad noogu weyn keligiina maahan ka maamul ahaan annagu waa soo dhaweynaynaa degmada Baladaxaawe saa u soo dhaweyseen oo ugu dabaaldegaysaan si la mid ah ayaan maaragtay u soo dhaweynaynaa waan idin hambaliyaynaynaa muujinta aad muujiseen maalintan ka degma ahaan magac way noo tahay meelo badan waxa suurtagal aan aysan ka dhacayn xafladana goobta ama maaragtay aan laga xasuusnayn ayaa suurtagal marka sida aad u update gareysantiin oo la socotaan mar waliba waqtiga iyo maaragtay xaaladda aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad u soo dhaweynaynaa geesta kale waxaa munaasabada 8 Maarso ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka Barwaaqo Maama Canab Khulule iyo qaar ka mid ah xubnaha ururka haweenka oo iyagu madasha ku soo bandhigay saargadood iyo halkudhigyo ka turjumaysa doorka haweenka Soomaaliyeed ay kaga jiraan bulshada hay'adaha samafalka oo nala soo shaqeeyay oo u weyn tahay hay'adda NCA oo wax naga soo qabatay baahida haweenka bulshada hay'adda NCA gacanta aad noogu haysaa waxay ogtaa baahidanada waxay ogtaa dacatiga waxay ogtaa wax dhibaato nagu dhacay waa hay'adda kaliya haweenka gacanta ku hayso markii gobolka Gedo special anaga reer buuxa waa ku tiirsan waxaan kaloo ku tigay nagala qayb qaata guddiga fircooniga dacatiga haweenka waxaa kaloo idan nagala qayb qaata sasuro oo ilmaha iyo hooyooyinka dhamay isku aruuriso oo dadka kala baafay raadiso dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa
سيرة ضوكلو هيدا وجامعة وقلوا حسيسو تكنيكا طبعا تيجي قليو تقناية تكنيكيشن وحسيسو وإلمها فصلنا جعنته وحلقة بطو لما هيدا هاس محلي جاء international في سوجرو وأمها العلينا وين رصوا شقيان وهذا لنا شقيان بالديار عبدالرزاق شيخ اسماعيل عبد الساق أفريقيا وررك كوفر قلب تي في بلد حاو